السلام عليكم أصحابتا سمنا الإسماركين وكراوة مانتا وحاربنا إنا ميشان وحير شو كشو بنقرينو أرمادا نيكي يقانو مركا يانتنا يدين مشر قرينين يدين ما ربوت قرين فيديوال بدن ما أنا صودقين مركا dadka waxaan ahay dadka badanaa kaamirada aan bajacleen oo ka xishoodo marka asxaabta soo dhawaada asxaabta laakiin nimayahu subscribe-ka iyo like-ka iyo share-ka wax dhan idinka ma hayo maanta waxaa idin baraa asxaabteeda ku nool Ankara meelaha ugu quruxda badan leh Ankara ee laga adeegto jiifka ilmaha jiifafka waaweynka dadka lacagta haysto ku soo dhawaada armada waa model waa dabaqyadan aan joogno u jeedin armada waa tana armada waa meeshani marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaad heesaan soo daaya commentiga iyo subscribe-kiina iyo share-ka iyo waxa dhan hala wada arko marka waxaan idin dhihi lahaa soo dhawaada asxaabta waxaan joognaa armada waxaa la dabaqaas oo jeedin waxa ku qoran Kervan Musigo infante marka armada waa dukaankani waxaan doonayaa inaan ka soo adeegto marka kaamirada ma jecel yahay dadkan oo ku dhex jiro oo adeeganaya inaan liiga dhex arko lama qurux badna marka armada ku soo dhawaada asxaabta qaaliga ah waxaan idinka codsanayaa nimayahow waxaan idinka codsanayaa horta in aad subscribe-ka iyo like-ga iyo share-ka ay badisaan nimayahow xataa Soomaalidiina xaasinidiina horta waxba idinka ma dhibtay waxaan like oo iska saara share-na dhaha subscribe-na saara waxa dhacay waxba idinka dhibi mayso YouTube yar way xogaa garka xataa waan deeyay doocan rabaa inaan noqdo marka Novib meesha waxa laga adeegtaa qalabka wax walba ayaa ka helaysaa waa mool dhan alaabyo badan baad ka helaysaa inta armada wax walba ka helaysaa dhar iyo wax walba marka waxaan joognaa hadda Ankara marka bal aad arko viewskiina intuu gaaro inta view fiirsatay aan arko kadib aan idin soo gudbiyo waxaan idin sheegayaa dadka waxaan kala hadlayaa dadka dalka Turkiga u soo ordayay wax nolol oo haba yaraatee Turkiga jirto ma jiro waxaan nigala share gareenayaa dadka Turkida ah wadankan Turkiga yimaado sida ay fiisaha ugu soo qaataan dalka markay halkaan yimaadeen reject baa la siiyaa dalkani Turkiga ma ahan dal oo yaani hadda u furfuran Soomaalidana Istanbul hadda wiilasha dhalinyarada waa lagu qabqabtaa waa lagu xirxiraa dhibaatooyin fara badan baa ka jirto fiidiyoogii labaad anigoo rag ila fadhiya aan ka wada share gareynayna aan wada hadlayno ayaan Turkiga iyo nolosha taalniga hadli doonaa waxaad ogaataan laakiin Turkiga meel loo soo ordano ma ahan meel nolol iyo guri iyo dadka ay ka diyaarsadaan ma ahan tan labaadna safaaradda wadankan nooga shaqeyso ee Soomaaliyeed ma ahan safaarad si sax ah nooga shaqeyso waxaan ka dhimanay community ma aan hayno ma hayno community ma hayno jaaliyad ma lihin safaaraddeenu waa safaarad irdaha u xiran yihiin baasaboor markaad ka rabto kaliya ayaad u doonaysaa baasaboorkaas ayaaba kugu qaadanaysaba yani balantiisa bil kugu qaadanayso suguta markaad tagto aad aadane waxay u baahan tahay tamam baawurkan baa wax yar ka leexinaya marka waxaad ogaanaysaan sidaa markay tahay dalka Turkiga ma ahan dal igu soo orada mase cambuulo carab saaran ah dalka Turkiga waa dal Soomaalidu aad sanadkan dambe oo 2021 ee ugu baahdilan tahay maadaama marka dalka Turkiga aan war idinka hayno dhalinyaro badan community idinka soo sii doonto oo Turkiga ku nool yani waxaan idinkaga haynaa cashir weyn oo Turkiga aad ka faa'iideysan kartaan oo faa'iido badan idin leh marka sidaas daraadeed cashirkaasi maadaama uu idin leeyahay Turkiga annagana hadda aan joogno waxaan idin soo gudbi doonaa dadka Soomaaliyeed ee dadka ay ku nool dalka Turkiga iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan dhibaatooyin weyn baa lagu qabaa
guryihii yabanji yooq wax lagu dhahayaa lagu leeyahay yabanji yooq yani ajnabi marabno waxaan la yaabanahay turkigu dalkeena shaqo u aadaa wuu ka shaqaystaa annaga lacag baan waddankiisa keennaa aan keennaba maxamed isaga waddankeena lacag buu ka soo sameeyaa marka haddana wax tixgelin oo gooniya aan ku haysanno ma leh nin walba farta ayuu ku hayaa wadnaha dadka turkida Soomaalida ku nool sababta ahaan sharcigii baa la siinayay nin loo diiday lagu adkeenayaa reject wax la dhahayo baa la siinayaa iyadoo awalba kaar yaro la siinayo oo iqaamada ayaa haddana la isugu darayaa yani rikaato iyo waxaan loo jeedin immigrationkooda marka turkiga wax loo soo ordo walaalayaal ma aha marka tani waa qaybta koowaad qaybta labaad waxaan idin balan qaadayaa qayb labaad iyo qayb saddexaad iyo qayb afraad oo turkiga yeelanaysa oo asxaabteedu dhan ay soo galayaan dhalinyaro badan oo meeshan ku nool oo Soomaaliyeed ee ka hadlayo nolosha dhabta ah ee turkiga taalo turkigu ma aha meel loo soo ordo turkigu marka nigala hadlane waxaa jooga Soomaali badan haba u badnaadaan dadka xildhibaaniinta Soomaaliyeed ee oo ilmahoodii ku soo meeshan ammaan ahaan ula soo orday oo ka shaqeysanayo dalkeeni lacagta dalkeeni ay ka shaqeeyeen aysan cashuur aysan ku bixinin dalka dhexdiisa ee cashuurta ku bixiyaan dalka turkiga iyagoo weliba la bahdilo ilmahoodii iyo xaasaskoodii tan labaad qurba joogta Mareykanka iyo Canada Europeanka oo Soomaaliyeed ilmahoodii bay halkan ula soo ordaan guryo bay ka gataan haddana yani iyagoo guryo leh waxay nooga fiican yihiin passport European iyo Canadian American bay wataan guryahoodii sharciba ugama baahno laakiin gurigoodii qaraac uu gali karaa iqaamadoodii baa reject la siinaya qof guri leh oo ilmihiisa reject laga siinayo turkiga ayaan ku arkay oo sharciga loo diidayo wadanka sanad baa la siinaya sanad kale waa loo diidaya laba sano la siiyay mas sanad baa la siiyay markay ka dhacdo jadiidi maago reject baa la siinaya dalka ka baxay ku soo laabo taasi marka turkigu waxay ka dhigan tahay in anagana dhacannahay oo aan u dhacannahay turkida oo dalkeenina ay lacag ka sameynayaan annagana lacag aan ka sameyn lacag anagoo u wadno aan ku haysan wax ixtiraam iyo tixgelin taas oo sababtay annaga safaaradda aan leenahay awgeeda ayaa sababtay waayo safaaraddeenu safaarad shaqeysa ma ahan dal walba markuu dadkiisa qurbaha joogo dalka oo joogo waxaa turjumo safaaradda turkiyaanka naftirkiisa markaa tiraado ninka Soomaaliga passport Canadian I'm Canadian uu leeyahay wuxuu gudub safaaraddeeda Canadianka waxana wuu baqaya laakiin marka Soomaali tahay oo aad tiraado aniga Soomaali baan ahay dhalade safaaraddeeda waxanaya wuxuu ku leeyahay waa ahda doonto waayo safaaraddaadu oo turkiga ka shaqeyso waa safaaradda waxaan dhihi karaa ugu liidata ma ahan safiir ma haysano nala sheer gareeyo meeshan maqaaxiyo waaweyn iyo hoteelo waaweyn baan ku leenahay safaaradda Djibouti madaxdeeda safiirka Djibouti shacabkiisa maalin walba bishii laba mar saddex mar buu la qadeeyaa ayuu la fariistaa Africa safraasi maqaayadda ee Soomaali leedahay oo macala building ah oo apartment ah ayay intuu yimaado ayay shacabkiisa Djiboutiyaanka macala kuwana Soomaaliyeed caadi noola fariistaa nala sheer gareeyaa noo sheekeeyaa naga taga okay annagu safiirkeenu nala sheer gareey iska dhaafay proofka gaariga xunka oo ku socdo meeshaan cid proof ku socoto ma jirtay iyo halka askariyo xun oo waardiinayo ayuu moodaaba in uu proof intuu ku socdo oo 10 cabdibile lagu waardiinayo marka dadka Soomaaliyeed waan ugu digayaa iyadoona dawladdeena waxba ka bedelin dalka Turkiga in ay guryo ka gataan waxaana ka digayaa dadka Soomaaliyeed ugu digayaa dalka Turkiga waa dal aan luqada ahayn looga hadlin English aqaan Arabi aqaan waxa doonto ku hadal luqada cid ka aqbalayso habeeraatay ma jirto wixii ka doonayaan inay ku hadasho luqada Turkiga waa luqad aad u adag luqad lagu hadli kara ma saddexaad Soomaaligu wuu ku bahdilayay meeshan fiidiyoga labaad qaybtiisa labaad turkiga weeyaan qaybtiisa saddexaadna turkiga baan uga hadli doonaa afraadna turkiga baan uga hadli doonaa shanna turkiga baan uga hadli doonaa ciidan ka baqaynana ma jirto turkigana waxay ay yihiin oo u sheegaynaa fiidiyoga haddii fiirsadaan xataa loo turjumo waan ku qanacsanahay anigoo Maxamed Axmed Saalax waxaan ku noolahay turkiga Ankara dadka Soomaaliyeed oo waliba Soomaaliya ka imaanay Mareykanka iyo Europeanka waxaan idin sheegayaa walaal Kistiina yar ha iska gelinna dalkani turkiga ganacsi ha iska gelinin gurina ha ka gadanin hana imaan haddaad timaadana guri ijaar ka deg sanadkaas aad joogto dhaqaale fara badan geli
dhaqaalahaas adiga kaaga baxay ilmahaad aad soo rartay oo iraan kontonku rag baan arkay $200,000 nin baa yidhi $200,000 maraya booliis buu ka yahay xamar sargaal buu ka yahay ilmihiisii uu 9 keenay guri buu gatay 200 biil wuxuu yidhi bishii guriga biilkiisu waa $2,000 yidhi waa xamar baa laga keenaa lacagta sargaal xamar $2,000 ka soo diro haddoo doono naag labaad xamar ku leh يعني waxaan qiyaasi kara maahan waa musuqmaasuq aad u weyn ma fahanteen marka dadka Soomaaliyeed iyo dadka dawladda wax ka ah oo dadka Soomaaliyeed u daciifiyay almiino dalkeeni waad nagu bahdisheen waxaan idinka codsanaynaa dalkeeni waxaan nagu bahdisheen colaad aan dhammaan baad ku furteen waxaan idinka codsanaynaa dadka qurbaha ha u bahdilinaha wadamadaani anaga wax naga doonaya Turkiga waa dal gaaja anagu wax naga doonaya Soomaaliya ka soo shaqeystaan lacagta Soomaaliya ka shaqeeyaan Soomaaliya kuma baxdo waxay ku baxdaa Turkiga lacagta annaga inta aan nimaanay ma ahan lacag Turkiga in laga shaqeysto $100 shaqo heli mayso Turkiga ma fahanteen $100 $100 oo shaqo ka heli mayso Turkiga يعني إن أنا عشر بحيال نقولنا أو كريال بحيال نقولنا وجريه دبغية دارية دستين أنا مال جلينا أو أن دسنا أو أن لعقتي أنا كبحنا أو كيلو كبحنا أو أن كجدرنا جوريجا نينك التركي جا هدو كود جيني هاي $100 أديكو حكود جي سبقولي $100 وحقيقة جرت أو ربع محان ولس النووي إن الشعب ك أنا نقولنا هاي إسلام كشكتي أو إسلام كأه محان أنا جا ولس النووي إنه وايو دلكي إنه مركز جوجان وين لسه مي نينك التركي جا أوكي waxaan ka doonayaa su'aashaas jawaabteeda dawladda qaybteeda labaadna waxaan eedeynayaa dawladdeeda Soomaaliyeed iyo safaaradda meesha u fadhiso marka fiidiyoyaasha way soconayaan ilaa 10 bay gaarayaan Turkigana nolosha jirto oo dhabtaan waa idinkaga soo duubaya walaalayaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waxaan ka codsanayaa inaan ummadda Soomaaliyeed 5tan fiidiyo aad igala qayb qaadato aad share iyo like iyo comment u siiso aadna jeclaato dalkaaga hooyo ee Soomaaliyeed aad jeclaato aad waxaad haysatana aaminto bini aadanna aadan dulmin ninka ku yimaadana ku dilo inuu ilaahay gacantiisa ee sareyso maalinta yawmal qiyaamana ilaahay kaaga ari doono cidnana aadan dulmin cidnana aadan dhicin cidnana aadan dilin qorina aadan qaadan dalkaagana ka shaqeysato isaga ayaa ka daqli badan Ameerikada lagu sheegayo waxa ka dhaqaale badan dalkaaga hooyo ee Soomaaliyeed dalkaaga hooyo ee Soomaaliyeed ayaa ka dhaqaale badan marka walaalka Soomaaliyeed waxaad aamintaa ee ku nool dalkiisa Soomaaliyeed gobolka doona ku noolaado waxaad aamintaa dalkaaga iyo goobta aad ku dhalatay waxa yarka aad diyaaradda ku soo raacayso oo fiisaha ku bixinaysa $4,000 dukaan yar ku furo ilaahay yaa razaaq yaa fataax dheh ilmahaaga yar dhex taagnaaw ninkii ku dulmi rabay ilaahay dhulkan buu ka dhaliyay dadkan buu ka dhex dhaliyay dhul buu ku siiyay diin buu ku siiyay wuu ku dhameystiray adnoo cidnaha dulmin shaqadaada aad soo masaajidkaagana aad ilmahaagana dhex joog nolosha lagu sheegayo qofka bini aadanka oo nool yahay idil waxa way meesha u shaqo tagaayo iyo gurigiisa nabad ugu laabanayo iyo masaajidkaas oo ku cibaadaysanayo ilaahigiisa oo ku baryayo waa inta uu qofku bini aadanka nolosha dunida oo ka raadinayo walaal marka waxaan ka codsanaynaa fiidiyogan inaad share gareyso waa 10 fiidiyo oo isku xigto oo 10 maalmood ee qaadanayso aan soo dhigi doono waxaan uga hadli doonaa dalka Turkiga iyo cunsurinimada taalo iyo Soomaaliga wuxuu ka yahay waliba 2019 ilaa maanta Turkiga waa saxmad markii koowaad wayna soo dhaweeyeen laakiin wajigeen ugu soo dhaweeyeen guriyo baa laga wada gatay guriyihii laga wada gatana maanta Soomaaligu isaga ayaa calaacal taagan yaa lacagteeda iyo celiyo meel uu ka ashtana ma yaqaano gaari baad gadanaysaa gaari markaad gadato waxaad ku qasban tahay gaarigaasi bal cunsurinimada jirto gaarigan nin ajnabi baa gatay Soomaan oo leh Turkiyan baa ka gatay ma ka gadi karo berito hadaan baxayo Turki waxaan ka gadayaa qof ajnabiga doona ha u dhasho laakiin dib ma leh laakiin gaarigaasi waxa la wareegi kara ajnabi marka gaarigani wadankan buu dhex yaala yaa ka saaraya ani hadaan doon waan ka baxay waxa xaq u leeyahay beec waa markeeda waa wadanka kaliya aan la yaabo carab baan tagay meel walba baan tagay يعني gaarigaaga xilligu iib ku yahay ninkii ka hela ayaa gadanayo gurigaaga duu iib ku yahay nin walba oo ka hela gadanayo ninka dalka u dhashay ha noqdo ko ajnabi ha noqdo ko ay wax doona ha noqdo ka gad iibsanaya halkani ma jidho waxaad raadinaysaa yabanji
أجنبي ويان أجنبي كلا يورادنا أجنبي أنت كينا هذيك بعنصري أجنبي كلنا ولا أنا ودن كان أوجد دينا تقول قال لي مثلا نولت الهندي باتكو أركلت هل هندي وسعودي أركميس أفغانستان باكو أركلت أو بنغلاديش أكو أركلت أو باكستاني أكو أركلت أو أصل شغتي أو أفريكان كلا أكو أركلت أفريكان كجوا صومالي إلا واحد بو إثيوبيانه أو عاد سنة كي بهالمر عاد أركيسو أفريكا ذا كلنا ما بلا شيء قبل إيدنا هبي شيء جنب عربنا ما تماضو إلا سوريان كسوق حموياني أو قريها قردشتا كدقن موياني وحكروا عرب وجوكتو يمنتي سوق حذي موياني مجرتو يخليجيان مرمر راح سجي ماذو والله عقوتو أسبوع لو أسبوع جوجو سكبحو dadka Soomaaliyeed waa ajnabiga ugu tirada badan oo dhaqaalaha geliya dalkan Turkiga dadka Soomaaliyeed weeyaan ajnabiga dhaqaalaha gashtay dalka Turkiga waa dadka Soomaaliyeed weeyna ku qasaareen waxbana yaani la soo lugoynin waxbana yaani la soo sirin walaalayaal waa ku baryayaa ilaahay dartii dadka Soomaaliyeed fiidiyoga soo waan faco ma jecli fiidiyo badanna duubo sidoo dadka Soomaaliyeed fiidiyogan iyo fiidiyoyaasha ka dambeeyso oo u anfaco walaal please dardaaran ayay ga tahay oo gudbi subscribe-na saar like iyo share-na ugu dar iyo commentiga intaba walaal waadna ku mahadsantihiin umadeeda dadkayga aan ka dhashay dhiigayga I like that love waa idin wada jeclahay umadeeda Soomaaliyeed waan idinkaga digayaa meel aniga aan bahdilnaad ugu noolahay shakhsi Soomaaliyeed uma ogolaanayo in uu meeshaasi isagoo waliba baahi haynin oo dhaqaale wato in dhaqaalihiisu oo karaamad deg ku cuno nin cadaan adoon uma yihi Afrikaan baan ahay Soomaali baan ahay Turki iyo Arab iyo waxa soo idil waa ka landheereysanahay Soomaali baan ahay Soomaalinimada ay deeqdo marka Soomaaliyo digtoono